qofku hadduu hurdo dheer galo arhebelow kacde kuma kaco waa la garaaca si hore ugu tooso fitanka iyo mashaakilka waa munabbahaadka waa waxa bini aadamka caqliga dib inuu isticmaalo keensada ولذلك بقى إلهي سبحانه وتعالى والقرآن ككليه وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين إلهي بقى وحينات المامي سنة الإمهال قال ذا ينكو سميه إن لو كاديو بل إن يغلفتوا دصور نغضان ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون بإلهي قال إن يقول يا ريسي كنت لقلي بإلهي لي أو ملايننا إن ربك بحصدين إنهم لا يعجزون وجملة اسمية مع أدوات التوكيد وضطه ما بدعي كرتبة إلهي لي إن ربي عجزي قلي كراه لكن إنك وحايدك وحكتلين واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه نتيجة الله لك الدنيا كالصعداء إلهي باشيغا وحيلي إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون إلهي وحليه سبحانه وتعالى كوا قالوا مال بيكون بحنيا إن إلهي جدكي سأودان وأنا بحين دونان با إلهي لكن ثم تكون عليهم حسرة با إلهي ثم يغلبون انتاسو مؤتمرات انتاسو وحبا لغا ورما سيدي لو جوجين كاري لها اسلام نمدا وحسيس دينته له waxay tahay حقيقة إلهي القرآن كو شيغيسه لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار با إلهي ثم لا ينصرون إلهي وحلي لن يضركم إلا أذى وحوغا ديب مويانه وحبا كلا يدين ما جيسان كران لكن وهدينو إنو نهي محي دتي للربي ee wadada tan hayay hadaba halana taariikhdu waxay tilmaamaysaa bini aadamku بعد الله سبحانه وتعالى inuu yaciida wax badasha taariikhyahanadu waxay yiraahdaan المعطيات السفرية taariikhda nabigu ama taariikhda aadanuhu منعطفات ميلay leedahay ka kala weecato taariikhda binaadamku way isku bedesho meelaha sibay leeyeen hal qof ah change ka bilaaba oo sameeya tusaale ahaan dunida noo madow oo sii dumaysa oo maamulada xumaadeen oo diimihii inxiraafeen oo boob iyo dhac ku nool oo dhaqaaluhu sii dumay wax waliba sii socdaan ayaa ilaahay wuxuu soo diray hal qof oo aan ciidan wadan oo xoolo sidanin oo agoona oo rajaya laakiin waxii loo soo dhiibay nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam yaa maqasheen lacag uu sitay iyo dhaqaale uu watay iyo waxba toona waxay dhahdaan waa almuctiyat as-sifriya sida logic ee caadiga haddaad u fikirto haddaad tidhaahdo dunidaynu isbeddel ka samaynayna oo project aynu qolada jaamacadda joogta u dirro waxaan dunida in la bedelo projectkaasi wuxuu u badan yahay human resource inta leeg wuxuu u badan yahay dhaqaale inta leeg wuxuu u baahan yahay time inta leeg wuxuu u baahan yahay inta markaynu intaas sanadood wadnaba isbedelka inta leeg dunida laga samayn karaa laakiin rabbi markuu la doonay hal rasuul buu soo diray dabeetana rasuulkaas sameeyay isbedelka weyn ee taariikhiga ah halana taariikhdu waxay tilmaamaysaa بني آدمكو بعد الله سبحانه وتعالى إنه يعيد وحبدشه تاريخيان هذا واحد هذا المعطيات السفرية تاريخ ده نبيه أما تاريخ ده آذنه
muncaطifaat meelay leedahay ka kala weecato oo taariikhda bini aadamkuba isku beddesho meelahaasi bay leeyihin hal qofaa change ka bilaaba oo sameeya tusaale ahaan dunidan oo madow oo sii dumaysa oo maamuladu xumaadeen oo diimihii inxiraafeen oo boob iyo dhac ku nool oo dhaqaaluhu sii dumay wax waliba sii socdaan ayaa ilaahay wuxuu soo diray hal qof oo aan ciidan wadan oo xoolo sidanin oo agoona oo rajaya laakiin waxii loo soo dhiibay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam yaa maqasheen lacag uu sitay iyo dhaqaale uu watay iyo waxba toona waxay dhahdaan waa almucطiyaat asifriya sida logic ee caadiga haddaad u fikirto haddaad tidhahdo dunidaynu isbeddel ka samaynayna oo project aynu qolada jaamacadda joogto u diro waxaa odhanayaan dunida in la bedelo projectkaasi wuxuu u badan yahay human resource intaa leeg wuxuu u badan yahay dhaqaale intaa leeg wuxuu u baahan yahay time intaa leeg wuxuu u baahan yahay intaa markaynu intaasu sannadood wadnaba isbeddelka intaa leeg dunida laga samayn karaa laakiin rabbi markuu la doonay hal rasuul buu u soo diray dabeetana rasuulkaasaa sameeyey isbeddelka weyn ee taariikhiga ah oo ku sameeyey 23 sannadood oo qura inuu taago dunida dawlad muslima oo dib u ah wuu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam dabeetana dad badani ridday dib ugu noqday ilaa 3 magaalo qura ay diinta ku soo hadhay ilaahay abubakar buu u bixiyey oo muddo sanad gudaheeda muslimiintii dib ugu soo wada celiyay dadkii ridoobay oo dhan 2 sano gudahoodna ku bilaabay inuu jabiyo dawladihii ugu waaweynaa ee dunida ka jiray muddo yar aan 10 sanaba gaadhayna waxay noqdeen cidda dunida ka talisa less than 50 years ay dunida dacaladeeda kaga talinayeen isbeddelka intaa leh ee dhaqaale leh ee cilmi leh ee bulsho leh ee dad leh wax kale idan taariikhdu waxay sheegaysaa aadanuhu hadduu mabaadi'da saxa qaato inuu yahay ka wax bedela iyaga gaar kuma ahayn taariikhdii hore ilaahay wuxuu inooga warramay dunidoo nin qooqani joogo oo le ana rabbukum ulacla maa calimtu lakum min ilaahin hayri qaala lilmala' buu weliba ku leeyahay hadda ma aha caamada iyo laynmaanka kuma leh waa golaha wasiirada iyo xaashiyada iyo madaxdu wuxuu leeyahay maa calimtu lakum min ilaahin hayri ilaahan aniga ahayn idinma ogi nin kibirku gaadhsiiyey inuu yidhaahdo qabiil dhan ama ummad dhan oo jirta ayay rag dhalin wixii ay rag dhalaan ha la laayo dumarkana ha la iska daayo ha inoo shaqeeyaan fircawn la yidhaahdo qur-aanku ka warramo ilaahay isbeddelka markuu ka warramayo wuxuu tilmaamay ina fircawna calaa fi lard wajacala ahlaha shiyaca yastadcifu طaa'ifatan minhum yudabixu abnaa'ahum wayastaxyi nisaa'ahum innahu kana min almufsidiin fircawn intaasaa ilaahay ka sheegay xagga kalena ilaahay wuxuu sheegay ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين waxaanu doonnay baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala kuwii la gumaystay ee la dullaystay ee laga xoog batay inaan ka yeelo hormoodka dunida baa ilahay yidhaha a'imma hormoodka duniyeed oo aan ka dhigo wanajcalahum alwaarihiin kuwa wax dhaxla boqortooyinkan iyo dowladahan iyo waxa kan dhaxla wanumakkina lahum fi lard dhulka inaan iyaga gacantooda geliyo wanuriya fircawna wahaamaana wajunuudahumaa minhum maa kaanuu yaxdaruun waxaan kaloo doonay baa ilaahay yidhi fircoon iyo haamaan iyo ciidamadooda waxay ka cabsanayeen inaan tusiyo baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala hal wiil baa reer banu israa'iil dhashay oo ilaahay badbaadiyey oo lagu badbaadiyey in badda lagu tuuro oo lagu badbaadiyey ninkii dadka laynayay inta loo gooyey in isaga la yidhaahdo war kori muuse badda inta laga soo qaaday gurigii fircoon la keenay islaan guriga joogta unbaa ilaahay uga nixiyo tidhi aan wiil ka dhiganno dabeetana gurigaa lagu koriyey muusahaas baa gacantooda reer banu israa'iil ilaahay ku badbaadiyey laakiin weli reer banu israa'iil may noqonin dad wax iska dhicin kara kuwan ilaahay baa halaagay fircoon iyo gurubkiisa inta badda loo kala jeexaa la geliyo masiibo xagga rabbi kaga timaada dhulku la degay laakiin a'imma markiiba miyay isu bedeleen reer banu israa'iil maya reer banu israa'iil waxaa la yidhi bayt almaqdis furta
waxay yidhaahdeen dacfigu weli halku taagay dadku markuu gumaysiga ku soo kore muddo ku jiro wuu hami jabaa waxay yidhaahdeen maye qoladii horeba rabbigaabaa halaagaye adigiyo rabbiga shaqada iminkana ku dhaqaaqaana waa idinsii sugaynaa markay madhaan baanu magaalada soo gelaynaa bay yidhahdeen socaynkan qur-aanku tilmaami maayo innahaa hunaa qaaciduun bay yidhaahdeene idhab anta warabbuka faqaatila innahaa hunaa qaaciduun ilaahay wuxuu ku xukumay 40 sana yatiihuuna fi lardi baa la yidhi nebi muuse markuu ilaahay baryay yidhi aniga iyo waxoogaa yar baan hayaa waxaa la yidhi 40 sannadood dawaq kale 40 sannadood bay dawaq kale culimmadu waxay dhahaan 40kaa waxaa madhay jiilkii niyadda liitay jiilkii gumaysiga ku soo koray baa madhay jiil xorriyad ku barbaaray baa kobcay dabeetana qiyaado hogaamisaa ilaahay u dhiibay yuushac ibnu nuun qiyaado rabbi weydiisanaysa ilah wacdeedda ii jooji inta aan qolada tan ka takhallusayo biyadihim baa biyadih ayaa ilaahay ku badbaadiyey maxaan uga dan leeyahay waxaan uga dan leeyahay umamku taariikhda waxay qoraysaa oo ilaahay kitaabkiisa inoogu warramaya inuu isbeddel aadanuhu inuu sameeyo hadduu manhajka saxa qaato mahma ay madowdahay inuu bini aadam wax bedelo taariikhdii horena ay ka dhacday taynu inagu ku abtirsanay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaamna ay ka dhacday ka labada aynu rumaysanay waxa yahay baynu nidhi inaynu rumaysanay ilaahay inuu dunida isagu maamulo qul illaahumma maaliki almulk tu'ti almulka man tashaa وتنزع الملك ممن تشاء إليه إله ملكك عدة دونتنا واتسيسا عدة دونتنا واتكوي عيسى لما ورنا وحل الوقت كسيبته واتكتشيده بني آدم كلا جم فتشيه كرسي قصرين صفة ذلك جم قاعد إنه أما حوق لجا قاعده أما السيستم أنا كبي حكرينه هذا جاي دكستينه كري حياينه وشرمه يعني بني آدم كم فضودين لجا الريحه كرسي قصرين هلا ينقاضك الصدحات مبشرات بين إلهي القرآن كينو وشيء جاي سنة النبي عليه الصلاة والسلام كو مبدئي النبي محمد عليه الصلاة والسلام يستحابة دي سدوني ده كوب دلين إلهي وحيروان دين إلالنا يا كاسم الدوبو بيه سجوا هيكسن إنا نحن نزلنا ذكره وإنا له لحافظ وإن دين إلالنا يا بإلهي مبدأ هدين لإلاليه محاول لمن عد كل نقطة الرميسار راعده وكل لسانه إن تنصروا الله ينصركم مبدأ ورد ورسيه إلهي بأوح القرآن ككله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون إلهي بأوحي نوشيغي قوشني نبي محمد عليه الصلاة والسلام يا صحابة وقولكم أي قومنين اعدي إيمان يا عمل صوبان لقاها لهم مبدأ سقاضته ليستخلفنهم بإلهي اللام والنون التوكيد بإلهي سقوقي ليستخلفنهم اللام المعطى للغسل اللام كل دارتي ورد حلسين ورد حلسين ورد حلسين بإلهي ليلوك كما استخلف الذين من قبلهم سيدي يوغي يغا ريا وضدا راعي بإلهي ورد حلسين ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ما أنت مسلم بان هي عبسا لغا قبا qofku wuxuu isleeyahay waradaada islaamka ku yara dhigdhigana taar magaalada ku aragtaa warbal gaalku yeena arkine odayga wadaadkeega wuxuu ku leeyahay warbal dahaaye gaalkiina waa joogaayo ina arkine bal wixii aan qoqoqo hartaan meelaha ku qabqabto ha isku soo mutaxina ilaahi wuxuu leeyahay wala yumakkinanna lahum diinahum alladhi irtada lahum diintu raalli uga noqdayna alla wuu makansiin waxa kaloo ilaahay leeyahay ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا عبسيدي قبين قداشيدنا إلهي نبتقل يوسين لكن شرط قوام حي يعبدونني لا يشركون بي شيئا شد كاين الراعان
saddex suuradood tiraba wax ku dhadhow ayaa ilaahay leeyahay huwa alladii arsala rasuulahu bilhudaa wa diini alxaqi liyudhirahu cala addiini kulli fi suurati tawba ilaahay wuxuu leeyahay yuriiduuna an yudfi'uu nuura allahi biafwaahihim waya'ba allahu ila an yatima nuurah walow kariha alkaafiruun gaalo waxay rabtaa inay ilaahay nuurkiisa damiyaan laakiin ilaahay waa diiday inkaasi damo diintani ma damayso inagu inaynu raacno iyo wayastabdil qowman gayrakum uma laa yakuuna amhaalakum inay dhacdo saa daraaddeed ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala ilaahay baa rasuulkiisa hanuun iyo xaq iyo diin dhaba ku soo diray liyudhirahu cala diini kullih walow kariha almushrikuun fii suurati safna yuriiduuna liyudfi'uu nuura allahi biafwaahihim wallahu mutimu nuuri walow kariha alkaafiruun huwa aladii arsala rasuulahu bilhudaa wa diini alxaq liyudhirahu cala addiini kullihi walow kariha almushrikuun fii suurati alfatxina ilaahay muxuu leeyahy huwa aladii arsala rasuulahu bilhudaa wa diini alxaq liyudhirahu cala addiini kullih wakafaa billahi shahiida idan kitaabu rabbina aan rumaysannahay baa wuxuu sheegayaa diintan inaan haalib laga noqonayn wuxuu sheegayaa inay maxfuud taho ilaahay ilaalinayo wuxuu sheegayaa ciddii raacda sidii kuwii hore loogu gargaaray in loogu gargaari doono ay dib u soo noqonayso ama axaadiistu iyaduna waa tiro badanta sheekh ilalbani raxmat ullaahi calayh kitaabkiisan la yidhahdo silsila alxaadiid saxiixa wuxuu ku bilowdayba cinwaan uu bixiyey almustaqbalu lilislaam cinwaan uu bixiyey buu ku bilaabanaya aw shan lix xadiid ku soo aroorinayo masaladaa ka warramaya waxaa ka mid ah xadiidku nebigu leeyahy in allaha zawaa liya alard ilaahay dhulkuu ii soo ururiyey fara'aytu mashaariqaha wa magaaribaha bari iyo galbeedba waan arkay wa ina ummatii sayablugu mulkaha maa zuwiya lii minha ummaddayda taliskeeduna wuxuu gaadhi doonaa dhulka inta lay tusay buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam markaa dunida weli ma wada gaadhin taliskii muslimiintu waxau xadiidkani tilmaamaya inay jiri doonto mar taliska islaamiga uu dunidoo dhan gaadhi doono waa dad maanka isticmaalay iyo dad caqligoodu fasax ku maqan yahay keennii fasax baynu u dirnay innagu weli muruqaynu tijaabinayna inaynu kala xoog badno istillaawin baynu tijaabinaynaa laakiin caqligu fasax buu ku jiraa iyaguse markay caqliga isticmaaleen iyagoo aan sharciba ogeyn caqligoo qura markay isticmaaleen waxay keensadeen inay waxay cunaanna haystaan dunida kalena inay quudin karaan ama wax ka iibin karaan waxaynu leenahay all resources caalamka islaamigu dhulku degan yahay waa almiyaahi daafi'a maanta raashiya oo dhamme waxay la'dahay deked biyo kulula deked maraakiibtu ay sanadkao dhan ku xidhan karto raashiya ma leh raashiya waxay badleedoo dhamme waa baraf ka fadhiista saa daraaddeed weli waa duulimaan uu raadinayo reer galbeedna weli waxay ka ilaalinayaan miyaahi daafi'a inay soo gaadho biyo kulul waddan aan lahayn dekedina maanta dunida ma soconayo muslimiintuna kanaliska dunida laga maamulo iyo dhulka istaraatiijiga oo dhan bay fadhiyaan dhulkooda wax weeyaan waa santarka dunida adduunka isku xidha bariya galbeedba kanaaladoodan yaryar baddeennan yare cas maraakiibta dunida ugu badanee bad martaa wax ka mid ah yacni dhul istaraatiiji ay degan yihiin resourceskii istaraatiijiga ee dunida ay ku dagaalamaysaba iyaga dhulkooda yaalla dhulkan yar aynagu ku gaajaysannay baa dunidu isku haysataa maanta resourceska ku jira waxaynu leenahay dhallinta ugu badan ee kacaamaysa baa caalamulislaami degan dadka ugu badan ee shabaab ee kacaamaya ayaa caalamulislaami degan idan waxaynu leenahay mustaqbal ummadda muslimiintii way leedahay ka sideedaad ama sagaalaad aan tilmaamaya waxa weeyaan tacriyat aljaahiliya waxa fadeexadoobay mabaadi'dii dunidu ay haysatay oo dhan baa qaawisantay waagii hore shuuciyad baa dunidu ku baaqaysay way duntay waa laga qanacay mar dambe reer galbeed bayna yidhi liberalism iyo xorriyad iyo cadaalad iyo kala dambayn bay ku dhawaaqeen reer galbeedna waxoodii oo dhan muddo yar bay ku fashileen cadaaladdoodii guantanamo iyo maxay abu qurayb baa fashiliyey iyo xuquuqul bini aadamkoodii dhaqaalahoodii waa kana uu sii dumaya nudamkoodii siyaasiga waa kan qawqaa'iga noqday hadda loo taagla'yahay
awal yaro iliita gacanta ku haysay laakiin hadda gilgilan badan baa ku socda waxaan leenahay wixii wax la moodayay way qaawisantay cidda qaawisa ugu badanina waaba iyaga khubaradooda maanta quus ka taagan systemska ay haystaan ma aha mustafa iyo wadaad jooga caalam islaama waa aqoonyahankooda u arka طريق مسدوده warjidkii oodan iyo xagee loo baxaya iyaga taagan marasay maanta leeyihiin dhaqaali u awdme islamic financing iyo islamic bank ku isaga recessioniski ka nabad galay ma qaadan karna maanta la leeyahay bangiyadii waaweynay dunida waxay leeyihiin islamic window hala furo daaqad islaamiya daaqada islaamiga maxaa loo furay ma islaamka lagu hiilinaya maya waa in dhaqaalaha dunida bal isbedel la sameyn karo waxaan leenahay wixii aadanuhu hiigsanayeenna quus baa laga joogaa iyada lafteedu haddaad meel kale u hanqal taagayso waa dee muddaad sii jeedaysa laakiin haddaad soo hungowdo dee waxaad odhanaysaa war wax kale baadhbaadho tan waa lagu hungoobaye waxaan leenahay caalamka reer galbeed iflaaskaasu ku jira iflaas akhlaaqiya dhaqankaa caydhoobay idmaanka iyo musaxaadka caqliga iyo waxaan baa batay haddaba dhibtan dhacayse muslimka haysta waxaan u arkaa inuu yahay maxay dhibtii lagu kala miirmayey meeshii dadka loo baahnaa uu ka soo baxayey dee hadiyad quroo laysa siiyo maaha in dunida aad hogaamiso muslimiintu dunida markay hogaaminayaan hadiyad qura ma ahayne mabaadi' bay ahayd iyo dad waxaan rumaysanoo sita nebi ibraahim baa ilaahay imtixaanaad baa la geliyey nebi ibraahim ilaahay muxuu weydiistay wajcalnii lilmuttaqiina imaaman buu ilaahay weydiistay dabeetana waa la imtixaama waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu bikalimaatin faatamahunna وإبراهيم الذي وفى والله يتحامل امتحانات تربضا بقرآن كورما يا نبي إبراهيم لقليه لكن إلهي وحي نوغا مرخاتك عي إبراهيم امتحان كينو كوغو ليستي مركو كوغو ليستي إلهي محوكا دقى نبي إبراهيم إمامين وددك ونغضه لكن نبي إبراهيم أعبرني ما قاضي وحي يري إله ذرية ديدانا ومن ذريتي بيري محل لوغو جواب لا ينال عهدي الظالمين با إلهي أنا يبالن كيغو ما قاعد با إلهي الظالمين يعني أنت إنه ظلم سمينو فردينو استيلو اسبابنو اسماغنو نفت سكينو دي نصر قصيدا كما يمادا ناصر كان أنك ورمية إيه وحنا نشيغي يصيدا كما يمادا إيه وحكو يمادا إنه نسبدلنا لولاد إننا سمينو intaynu fadhfadhino odhan mayno mubashiraadku qur-aankay ku yaalleen iyo sunnaday ku yaalleen odhan mayno nebi maxamed iyo saxaabadiisii markay jabeen ay yidhaahdeen miyaanan muslimiin ahayn maxaa loogu jawaabay qul huwa min cindi anfusikum anna haadaa bay yidhaahdeen ilaahay muxuu ku yidhi qul huwa min cindi anfusikum maxaynu u baahannahay warka aan soo koobo waxaan leeyahay inkastoo maanta dunidu madow ay ku jirto aadna dhib ay uga muuqato laakiin dadka aqoonyahanka muslimka bidhaan baa u baxaysa tilmaamaysa meeshii looga bixi lahaa waxaan leenahay mubashiraadkii oo dhan ama waxyaabaha sheegaya inaynu noloshan gaadhi karnaana waa tiro badan yihin laakiin waxaynu u baahanay saddex xaloo qura inaynu si fiican isula garanno kow هدفكو إنه عضاضه ماشي إنه صعنا إنه عضه وحق ربنا إنه كعنا وحي إلهي سودة شيء وطلق له إنه ينقصحه إنه راعنا صينه ينقصحنه وضوح الهدف والطرق الموصلة إليه قولك يا يولك يا ماشي أنقصحنا وضدوا إن أنا إلومين أديك تكو حقا كاحقاد وضع حقا سياقا هذاك ورا وقلدنت يدي هدارت كل منك ورا سورة القرآن كوا أخرس بدل لوا فاتحة سماها فاتحة ده سؤال شو وين إلى هي يري ويدي استوى محي اهدنا الصراط المستقيم ندوية سماها ما لك است إلهي تضبيه طبعا شري سرت أقبل ويري واحد ويدي ستا محي إلى وتوبيه النصار
الصراط في اللغة وحلا إلى هذا حقافك جدك بلارن جدك هدو يريهي ولو توبيه وحلا جاي بين ضدك بو قادي ويا ما لقى خلا لبه لكن هدو حقاف النقطة ومحي ومال ضدك ورن قاضيسه إسلام مركب وحلا يدوي ستريت ومستقيم وتوسين ومال مركبات كوجاري كرتو يور جولز هدف كاجاد مركبة كوجاري كرتو يول كاجا يمشي بسرعات جاري كرتو إلهي وحوي دي ستنبال إلى الصراط المستقيم صراط كان والله الشيء وحلا يدي محي صراط الذي